الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أيها الأحبة في الله، نبينا صلوات ربي وسلام عليه وحكسوا إن يري ضدك أهل الإيمان كأه waxay ka dhigan yihiin sidii hal jid oo kale, siday isugu naxariisanayaan, siday isugu dabacsan yihiin, siday isugu nugul yihiin, say isu jecel yihiin, hal jid oo kale ka dhigan yihiin. jidka haddii qaar ka mid a xanuunsado, qaarka kale wuxuu la soo jeedaa xanuunka iyo qandhada haysa qaybta xanuunsanaysa. waxaa kaloo lafdi kale ku yimid muslimiintu waa hal nin oo kale, hadday ishiisu xanuunsato jidhkoo dhan baa la xanuunsanaya, hadduu madaxu xanuunsadana jidhkoo dhan baa la xanuunsanaya. jidhkaasoo kale ka dhigan yihiin muslimiintu. waxaa kaloo nabiga ka sugan sal lla alay wasalam inuu yidhi ruuxa mu'minka ah mu'miniinta kale wuxuu u joogaa meesha madaxu uu u joogo jidhka intiisa kale. mu'minku wuxuu la xanuunsanayaa walaalihii xanuunka haysta iyo mu'miniinta kale dhibaatada haysata. sida jidhku ula xanuunsado dhibka madaxa haysta iyo nabarka madaxa ku yaala, sida uu jidhka intiisa kale ula xanuunsanayo ayuu mu'minku ula xanuunsadaa dhibaatooyinka muslimiinta. xadiistaasi waxay tilmaamaysaa calaamad iyo astaan ka mida astaamaha lagu garto iimaanka iyo waxyaalaha iimaanku uu keeno, oo ah dareenkaagu dadka muslimiinta ah inaad la wadaagto dareenkooda, dhibaatadoodu ay ku xanuujiso, murugtoodu ay ku murgiso, walbahaarkoodu uu ku walbahaariyo, musaa'ibta haysaataay ay ku xanuujiso, inaad ka danqatood ka xanuunsato. arrintaasi waa arrin iimaanku keenaya wey. mar kastoo ruuxa iimaankiisu dhammaystiran yahayna dareenkaasi waa xoogaysanaya. mar kastoo ruuxa iimaankiisu uu daciifana dareenkaasi waa daciifaya, ilaa heer uu gaadho marka dambe inuusan haba yaraatee wax way dhibaba iyo culaysba uusan ka saarnayn hadday malaayiin muslimiina baaba'ayaan. waa arrin halisteeda la wey. maanta xaaladda haysato muslimiinta guud ahaan caalamka, gaar ahaan dhulkan aan ku noolahay iyo qutrigan aan ka soo jeedno, musiibada haysataay musiibo sahlan ma aha. wax ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keenay, addoommaduna ay kasbadeen oo alla uusan dulmiyin ayaa ka jira. ummaddii waa baaba'aysaa. gaajo iyo oon iyo cunto la'aan iyo hoy la'aan iyo dhar la'aan bay la baaba'aysaa. intaasoo kilomitir bay ka imaanayaan. xoolihii baa ka dhammaaday, raashiinkii baa ka dhammaaday, beerihii baa ka ba'ay, dowlad la'aan iyo abaaro iyo muxuu ahaay colaad. waxaa naf la biday meesha kuugu sokaysa uun xero qaxooti ka gaadh. markaasaa meel walba laga yimid. meel walba markii laga yimidna intii tabar lahayd baa meesha soo gaadhay, intii tabar darraynna jidkaa lagaga yimid. xoolo markay socon waayaan jidka lagaga tagaan arki jirnay.
laakiin dad socon waayo jidka lagaga tagay waa dhacdo cajiib ah ninka la nool bayna culays ku haysaa dareen iyo mas'uuliyadina ay ku jirto intaasoo dhibaha la soo maree xeryihii loo socday markii la yimid maxaa laga helay wax yaalla ma leh kuwii loo soo socdayna gacmahay kala rogayaan markii horeba daacad maysan ahayn haddana gacmahay kala rogayaan cid kale oo meesha joogtana ma jirto kuwa ay soo duldegeen oo u yimaadeenna kuwa wax ku dhaama ma aha kuwa meesha sii deganay kuwa wax ku dhaama ma aha galeydii yaradii qaadanayeen ayaa la isugu yimid reerkiiba waxa soo duldegay inta soo reerood digsi dab lama saaran karo kii sii joogay xataa ma saaran karo sida ay tahay qaylo iyo dhawaaq iyo culimadii iyo xilkaskii waa lagu dhaxdhacay wal wixii laga khafiifin karo dadkan qaawan hal asturo ilmahan dhimanaya hal badbaadiyo musiibadaas iyo culayskaas jira meeshan kaliya kama jirto waxay ka jirtaa wadanka gudihiisa bay ka jirtaa wadankan gudihiisa ay ka jirtaa Ethiopia iyo dhulkii la degi jiray kale xaggay jirtaayo dad badan u qaxeen musiibadu waa musiibo caam ah musiibo u baahan way ummadan in loo qayliyo loo istaago ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu inagu imtixaanayo nabigeennana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhacdooyinka noocan oo kala markuu dareen noocaas musiibo muslimiinta ku habsatay iyo kawaarithta noocan oo kala ma aamusi jirin nabigu sallallahu alayhi wasallam mana fiirsan jirin ee rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu alayhi iyagoo saxaabadu iska tabar daran yihiin laftoodu iska gaajaysan yihiin ayuu haddana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu istaagi jiray sidii wuxuu looga qaban lahaa waxa muslimiinta haysta مثالنا waxa inoogu filan xadiidka ku yimid fi sahih muslim min hadith jarir ibn abdullah wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaanu la joognay maalinta gelinkeeda hore markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yimid dad qaqaawan oo maradii yarayday haysteen intay madaxa ka jeexeen madaxa ka gashaday hal qeyd bay wataan seefahoodiina way wataan waana qaawan yihiin diif iyo dactarra ka muuqata waa rafaadsan yihiin nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu arkay waa ishanan waay gurigiisuu galay waa soo baxay bilaal buu amray aadaan buu yidhi waa la aadaamay salaadii baa la aqimay wuu tujiyey nabigu sallallahu alayhi wasallam salaada kadibna dadkiiba u khudbeeyey oo hadal u jeediyey ilaahay buu xusuusiyey tabaaraka wa tacaala laba aayadood oo qur'aan ah oo baqdinta rabbi tabaaraka wa tacaala ay ku jirto iyo alla ka baqa aakhira iyo waxa soo socdana iyo waxaad u hormarsateena xusuusta ayuu umada ku waaniyay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kadibna nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nin walba wuxuu heli kara ha sadaqaysto ninkii diinaar heli kara ha sadaqaysto dirham ninkii heli kara bixi ninkii dhar heli kara bixi ninkii heli kara waxoogaa timirow bixi waxoogaa bur ah ama qamandiya ninkii heli kara bixi nabigu sallallahu alayhi wasallam wajigiisa isbedelay xaaladda markuu arkay waa xamili kari waay ila nabigu sallallahu alayhi wasallam wajigiisu doorsoomay wuxuuna ahaa nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dareenka qalbigiisa ku jira wajigiisa laga akhrisan jiray nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa isbedelay موقف كان واستاج النبي صلوات ربي وسلام عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحكى لهداد ويدو تمير شاهد كان بنبي صلوات ربي وسلام عليه تمير حبت تمير ولا ما يسترن معه حتى حبت تمير شاهد هلا كان بنبي صلوات ربي وسلام عليه ماشي بقى صحابته استاجن مركبا من صحابته كم يدو أنصارئة أيا وحو كاني صدقة وين ولا بدي سكف أي قادي لا يهين dadkii markaas ay israaceen wala iska daba galay ila laba meelood la buuxiyay meel raashin ah iyo meel dhar ah nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wajigiisi isbedelay hadana waa isbedelay markuu arkay saxaabadiisu siday uga qayb qaateen arinta isugu taageen
iyo sida wax loo soo ururiyay baahida muslimiintana looga qayb qaatay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wajigiisii waa iftiimay oo waa dhalaalay gabal dahabaad moodaa siduu u iftiimay nabiga sallallahu alayhi wasallam wajigiisu yani wuxuu ku farxay sida looga qayb qaatay musiibada muslimiinta haysata markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxi jideeya jid khayr ah oo lagaga daydo oo dadku ku raacaan ajirkeedu leeyahay inta ku raacda gadaasheedana ajirkoodu kale leeyahay ayadoo ninna ajirkiisa laga nusqaamin ninkii jid xun jideeya oo lagaga daydo lagu raaco dambigeedu leeyahay inta ku raacda uga dambaysana dambigoodu kale leeyahay ayadoo ninna dambigiisa laga nusqaaminin xadiidkaas uu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mowqifkaasi waa kii rasuulkiina salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mowqifkaasi rasuulku u istaagayna dayashu mudanya inagu inoo jideynay xaaladda noocaas oo kala markay timaado la tafaaculkeeda ayuu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ummadiisa barayay iyo mid ka daran ba maanta ina haysato muslimiinta haysata waana ku fadeexaysanahayo inaga halkan joognay dariska la ee waxoogaga haysta ee ladan ee cunayna cabayna ee nabadgeliyada haysta ee ragga qaarkoodna xoolo badan ay haystaan dadkaasa ku ibtilaysan oo ku imtixaanan liyandura kayfa ta'maluun sidaad samaysaan baa la idin fiirinayaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala wax uma waayin inuu deeqana uma waayin masaa'ibta inuu ka qaadana rabbi tabaaraka wa tacaala ma kari waayin laakiin waxa weeyaan waxa lagu fiirinayaa ayagana waa la imtixaanayaa dadna waa lagu imtixaanayaa waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu yiri dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ruuxa dadka ugu manaafacaadka badan ugu anficida badan amalna alla wuxuu ugu jecel yahay farax aad ruux mu'mina geliso oo aad ka farxiso murug haysatay inaad ka qaado dayn uu qabayo culays ku haysay inaad ka gudo gaaja haysay inaad ka saarto nabigu sallallahu alayhi wasallam ina ruux muslim oo walaalkay xaajadiisa iyo dantiisa isu taagoon u socdo ayaan ka jeclahay inaan bil masaajidka ku i'tikaafo ruux walaalkii raaca oo dantiisa ka shaqeeya ila uu dantiisa u gudo u sugo ilaahay ba tabaaraka wa tacaala gomadiisa iyo lugtiisa sugaya maalinta qiyaamada maalinta ay luguhu simbirraxanayaan baahi in laga faa'iideysto u baahan baa meesha taala baahi aan laga aamusi karin baa meesha taala musiibo aan loo dulqaadan karaynin baa meesha taala musiibadaasi waxay u baahan tahay muslimiintu inay dareenkeedana yeeshaan jawaabteedana ay bixiyaan inta karaankooda ah oo ficil ahaan la isu taago maxaa la kari karaa waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi in uu yiri ruuxa u socda haweenta nin la'aanta ee cid hawsheeda isu taagta ayna jirin iyo miskiinka baahan hawlahooda ninka ka shaqeynaya ruuxa ka shaqeynaya waxba uu ururinaya waqtigiisu ku bixinaya tiisiibuu ku bixinaya dadkiibuu ula hadlaya ruuxa saaciga arinta ku dadaalaya wuxuu la mid yahay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam mujaahidka jidka ilaahay ku jihaadayo la ajir yahay waxa kale uu la ajir yahay ruuxa maalinna sooman habeenna taagan habeenkii salaad buu taagan yahay maalintiina waa sooman yahay kaasuu la ajir yahay waxaan dhihi lahaa cidii waxaysata oo wax heli karta nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay dad uu nicmooyinkiisa ku khaas yeelo ilaahay xikmadiisa weeye dadka qaarna wuu qadiyay qaarna wax buu siiyey qaar dhexdhexaad buu ka dhigay qaarna wuu sarraysiiyey oo adduunyadan uu ku farraqay waa xikmad ilaahay dad buu ilaahay nicamkiisa ku khaas yeelaa maxaa loogu khaas yeelay limanaafic alcibaad inay addoommada anfacaan baa loo siiyey ma aha inay keligood cunaan ma aha inay keligood kaydsadaan
معها إن لتشعليها معها إن للدورتي وحا لو سيي لمنافع العباد إلهينا تبارك وتعالى انت أي أضومضا كو أنفعيان نعمدا إلهي وأدينيا مركي ديدان ويعشدان كيتصدان ويريبتان كحناقان مركي باهدا مسلمين تلصوبان ديغو إلهي تبارك وتعالى انتو كسيبو كقادو بوعيدك لكوري اتشنيا وتلك سنة الله تبارك وتعالى شري قين كي فقيرها ما انت حولوها يستا كي غني أها أو تاجر أهانا دريغدو تاغيه إلهي تبارك وتعالى بأرمها ماموليا سيدو دوننا أرق رقيا لكن عقلي يرد ابن آدم كوحي تاهي مانين كوحي قعنتي سكوتشرا باتلدي سو أول يا آخر بطعي وحصو مرينا ما حصوصه وحصوص صعودنا ما فهمه لكن مالين كاسو اسمها ديا وحوغاغا سونا قرات كيسية قرشدي سو كورورستا ولله تبارك وتعالى كبغى كذلك كنتم من قبل إن بدنوا إذن كم إذا شلت سوق حدين إن بدنوا إنك مذا قح نوع عسان مرني مصائب نوع عسان مرني إلهي تبارك وتعالى باكود قيا وحكسيو كودجيي ولا الكاغا مسلم كما أنت مصيبة دي هيزته إن أدن قوي ذاي حساب تدواد بيسا ربنا تبارك وتعالى نمها المنصنة نمنا موجا الله تبارك وتعالى ولا ليال إلهي أنك بغنا تبارك وتعالى مصيبتنا لقى جواب دبدي جذب مسلمين توائين دقاقان ضدك وولالهن وددك دين تلعايا مسلمين تحاول ودد إذن لا شيء وأهل كيني وإيدو إيه حبرير إيه حدد إيه حجالوي وددك هذا ضلتين وي وددك هذا إسكو دين تي مبدو إذن كده حيوي ودد ما أنت إذن أين إذن كسو كينين وإنت إذن شروي dadka noocaas inaan sidaa kaga gaabsanayo waa waxaan macquul ahayn marna ma aan la qaadan karin way muslimiinta dibadda jira iyo kuwa gudaha jooga iyo meel walba joogaanba muslimiinta aan loo gurmado oo musiibada iyada ha laga jawaabo nin walba wixii karaankiisa uu kari karayo waxayna u baahnayna ma jiro hooy bay u baahan yihiin banaan bay fadhiyaan qorraxda ku dhacaysa qabowga habeenkii baa ku dhacaya banaan bay jiifaan hooy bay u baahan yihiin waa gaajaysan yihiin oo cuntay u baahan yihiin waa ooman yihiin oo biyay u baahan yihiin caruurtii baa nafaqa darro dhimanayso nafaqa u baahan waa yeelkii iyo duqaydii baa rafaadsan oo baaba'aysa waxay u baahan yihiin xataa maacuun bay u baahan yihiin weelkii xataa biyaha ay ku soo dhaansan lahaayeen ma hayaan dad jid dheer soo galay oo soo rafaaday oo qaar badan ka yimid oo intii timidna ay sagara tahay ummadaasi meel walba ha loogu gurmado oo wadanka gudihiisii ha loogu gurmado oo meel kastoo tageen u qaxeen ha loogu gurmado oo nin walba wixii uu kari kariye karaankiisa ha gurmado gudiyo masaajida yani muassasaadka jamciyaadka hala isticmaalo cid kastoo xilkasana ha istaagto ama mas'uul ha noqdo ama muxuu ahaayay ruux caadi ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo hawshaasi waa ku imtixaanana ilaahina tabaaraka wa taala imtixaankaasi waxaan rajaynaynaa inuu san nagu ridin dambina naga raacin musiibana ilaahay nagu keenin tabaaraka wa taala taa ayaga ku dhacday tulamid way nagu iimaan kartaa waa inaad filato waa inaan marka aan si wada jir allaysu taago la gurmado dadka loo gurmado way masaajida iyo goobaha yani wax way khayrka rag iyo dumarba wixii la heli karo hal keeno wax alla wixii la heli karo oo dadka wax tar u ah oo lacag ah oo dhar ah oo weelal ah oo hoy ah oo teendhooyin ah oo gogol ah wax kasto la heli karo umada la soo gaarsiyo ilaahi tabaaraka wa taala ha nasturo allah tabaaraka wa taala waxaan weydiisanaynaa inuu musiibada naga qaado allah tabaaraka wa taala muslimiinta ha u naxariisto dhibaatadana ilaahi ha naga qaado إلهي تبارك وتعالى ذنوبتنا هنوما قبته ربنا تبارك وتعالى نحريستي سواسعة هنقول معاملة عقوبتنا ربي تبارك وتعالى أمدها ككر قاضو إننا الله ينوافجي تبارك وتعالى أمدها وحقبت كذي قرمشة صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والفتن يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.